madaxweyne waxaan doonayaa inaan ku baro kooxdan saaha cidda yihiin magacyaday ka kooban yihiin inta hadday nala joogta ayaan doonayaa inaan ku baro intaanan cidna magac dhabin waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo safiirka inoo fadhiya North America especially magaalada Washington Bashiir Sheekh Umar Good oo qayb laxaad ka qaatay sidii ururkan la isugu dubaridii lahaa sidii loo aasaasi lahaa ilaa haddana nala garab taagan muxuu ahaa taageero madaxweyne waxa naga maqan koox Canada iyo Mareykan jirta dad badan oo dhakhaatiir iyo xirfadlayaal ah oo North America jooga oo aan magacyadooda soo koobi karin oo dhammaantood u hiloobay in dalka wax u qabtaan kana mid ah ururka kan oo memberska markii uu dhacay COVID-19 within 1 week isbuuc gudihii ayaa waxa ilaa 4,000 oo research papers ayaa la produce garay sababtuna waxa ahayd wuxuu noqday xanuun adduunkii ka fajiciyay iminkana researchku xanuun kasta oo inagu dhaco uu ku socdaa waana la cusboonaysiyaa sababta aanu up to date ugu dooranay inuu noqdo mashruuca u horeeya aanu qabanno waxa weeye waxaanu rabnaa in adigoo telefoonkaaga palmka gacanta ku haysta aad eegi kartid xanuunka waxa koosgareeya ee keenay sida loo investigate gareeyo ama loo baaro sugitaanka decision makingkiisa iyo go'aamada aad qaadanaysid inaanay marna kaa khaldamin dawadu kaa khaldamin follow upku kaa khaldamin maarayntiisa guudna aanay kaa khaldamin waxaanu gelinay waqti aad u badan si aanu mashruucan u helo oo uu bilaash ugu noqdo dhakhaatiirta ku nool ama ka shaqeysa Somaliland waxaanu qabnaa kalsooni in aad nagala wareegaysaan mashruucan inaad hananaysaan inaad fulinaysaan sababtu waxa weeye haddii aynu si fiican u fulino oo dhakhaatiirta oo dhan uu gaadho iyo jaamacadaha kumayaal xataa haddii yihiin waxay naga anfacaysaa mashaariicda dambe ee aanu u dagaal geli doono ayay naga anfacaysaa waan idin salaamayaa dhammaantiin